haddeerna bisha 9aad lagu jira ilaa iyo haddeer dawladda wax xuquuq ma aan ka hayno yaa haddana dawladdu koorsayna gelisay koorsada waa ka soo baxnay dariis iyo qoryo noo dhiibeen yaa intaas waxaan noogu soo xigtay kadib markaan 3 bilood soo dhamaysanay oo shaqadayna ka soo baxnay wax xuquuq leedina ma haye meesha ku kala taga in la yiraahdo intaas noo soo baxday anti waxaan oo wanaagsan aqeerta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhamaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka la garay subhanallah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna umure leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeya inta awlaadonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la garayana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna maal adduunyo aysan fileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee buu dhaafaa ربي سبحانه وتعالى أنا وكعز ما جنة الفردوس الأعلى حاسدك وعلنا هو من شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفرح بإن الله الكريم وحكودا بين يهود قصاره والله سبحانه وتعالى عن كقبرينا لما أنت رب سبحانه وتعالى عن ودي سنة أنت حنوصلين له سبحانه وتعالى حنونك وكل القاضي ومدة الصوماليين مروا بيجوكتنا رب سبحانه وتعالى قرقار كيس النصر كيس الله سبحانه وتعالى هسيو ورك كيمان يا مقالة عاصمة دوا صومالية مقدشو يا عشيقة يعني ما أنت أي حرتين إذا ما كترسن قوة نبتسجد يسردون كقارن صوماليين الناس ودوين مهمة أو كترسن magaalada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan wadada isku xirta xarunta madaxtooyada iyo waliba midda aadad taliska nabad sugidda Soomaaliya loo yaqaan Hawar Qadiijo halkaas oo fadhiisan waa taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ciidamadan ka tirsan nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa ayaa waxay ka soo godoodeen fadhiisan ay ku lahaayeen garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir kaas oo dhawaan la furay isla markaana dawladda Soomaaliya ay furtay waxaana goobtaasi la geeyay ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa kuwaas oo halkaasi ilaala ka hayay waxayna ciidamadan ay ka cabanayaan mishaar la'aan soo wajahday muddo 3 bilood ah oo ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir saraakiisha oo ka aysa ciidamadan ka tirsan Nisa ee maanta godoodka sameeyay ee xirtay wadada isku xirta madaxtooyada iyo waliba xarunta taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa waxay sheegayaan inay mishaarkii ay lahaayeen muddada 3 bilood ay waayeen isla markaana saraakiil ka tirsan hay'adda Nisa ay ku wargeliyeen inaysan jirin wax xuquuq ah oo ay ku leeyihiin dawladda Soomaaliya saraakiisha qaarkood oo warbaahinta la hadlaya waxay sheegeen in ay muddo 3 bilood ay u shaqeynayeen dawladda Soomaaliya isla markaana ay wateen diriiska ciidamada Nisa ayna ahaayeen ciidamo qaranka ka tirsan kuwaas oo sheegay inay xaq ku leeyihiin dawladda Soomaaliya oo taas oo ku aadan in muddo 3 bilood aysan helin mishaarka ay lahaayeen askarta iyo saraakiisha qaarkood oo wajidooda ay ka muuqato duruuf aad u adag waxay sheegayeen inay ku jiraan guryo kira ah isla markaana awlaad ay leeyihiin awlaadda ay dhaleen ay doonayaan bil iyo waxay cunaan qoraxdan ay u taagnaayeen difaaca qaranka Soomaaliyeed sida ay sheegeen saraakiishan iyo askartan maanta xiratay mid kamid ah wadooyinka halboolaha u ah magaalada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan wadada ay isticmaalaan madaxda ka tirsan dawladda Soomaaliya taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la sheegay in si weyn uu kaga carooday godoodka maanta ay sameeyeen ciidamadan asiga hoostaga kuwaas oo ka cabanaya mishaar la'aan muddo 3 bilood ah taliyaha Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ila xoogaal oo ka agdhow waxay noo sheegeen inuu aad u kaga xanaaqay taliyaha talaabada ay qaadeen askartan boqolka ah ee saraakiisha ciidamada Nisa ee askartan horboodaysa wuxuuna tilmaamay in askartan mishaarkooda uu u dhiibay madaxa shaqada iyo shaqaalaha hay'adda Nisa kulan ajiis kaas oo kamid ah xubnaha ugu awoodda badan hay'adda Nisa isla markaana aan la ogeyn halka uu ku bixiyay kulane lacagahaasi laakiin ila ka agdhow kulane iyo Fahad Yaasiin ayaa waxay inoo xaqiijiyeen kulane in lacagaha mishaarka 3 bilood ee lagu talagalay askartan fadhiisanka kula degmada Daynile ee gobolka Banaadir inuu u waciyay gobolka Gado askar ku sugan oo ka tirsan hay'adda Nisa kuwaas oo u baahday dhaqaale dheeraad ah dhaqaalahaasi 3 bilood ee lagu talagalay ciidamadan dawladda ee ka tirsan hay'adda Nisa fadhiisankana ku lahaad garoonka degmada Daynile in lacagahooda loo waciyay dhanka Gado baahi ciidamada Gado ku sugan ay soo sheegteen iyo waliba daabulaad qaar kamid ah askartaasi loogu talagalay in laga soo qaado Gado loona soo wareejiyay magaalada caasimada ee Muqdisho waxaana la sheegay taas inay keentay in 3 bilood askarta ciidamada dawladda ee Nisa ka tirsan ee degmada Daynile mishaarkooda in loo waciyo dhanka Gado baahi badan oo ciidamada Nisa ka tirsan ee Gado jooga ay sheegteen sida ila xoogaal ah oo ka agdhow xafiiska taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo waliba madaxa shaqaalaha hay'adda Nisa kulana jiis ay noo xaqiijiyeen laakiin waxa la sheegay in taliyaha Nisa Fahad Yaasiin uu amray goordhow in si degdeg ah loo bixiyo mishaaraadka ay sheeganayaan ciidamadan dawladda ka tirsan gaar ahaan kuwa ka tirsan hay'adda Nisa ee soo godooday garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir wixii arimahan ku soo kordha halkan ka daawo